munaasabadan oo ay Mr. Sala loo soo agaasimay ayaa lagu caanashubayay garaad Mukhtaar Garaad Cali Buraale oo booskaasi ay dhawaan beeshiisu dooratay inuu buuxiyo booska abihi Allah u naxariistay Garaad Cali Buraale. munaasabadan oo ka qabsoontay deegaanka Dharkeengaye ee gobolka Sool waxay Mr. Sala loo soo agaasimay waxaana ka soo qabgalay wufuud kala duwan oo isugu jirta culimo diin isimo waxgarad cuqaal iyo marti sharaf kale oo tiro badan. martidan ayaa ka kala timid deegaano badan oo ay kamid yihiin Puntland, Somaliland, Kililka Shanaad iyo meelo kale oo tiro badan. anoo ku hadlaya guddiga qabanqaabada waxaan doonayaa halkan inaan uga mahadceliyo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan hadday tahay hoggaan dhaqan hadday tahay siyaasiyiin hadday tahay waxgarad goobtaan hadeer lagu caleemo saaray ama guddiga qabanqaabadu ama sabeeshuba aan u garanay inaanu Garaad Mukhtaar Garaad Cali ku caleemo saarno waxaa 20 sano lagu caleemo saaray ilaahay ha u naxariistee Garaad Cali Buraale Xasan geedka quraca ee ka dambeeya ee ay xafladu dabada ku hayso sida laarligeed baan ugu dooranay wuxuu ka ahaa manager company kadibna markuu yimid halkan maanta waxaa loo cimaamadayo aanu guddiga qabanqaabada hawshiisa ku jirnay inuu geedka aad arkaysaan iyo dhulkan aad arkaysaan garaad nooga noqdo waxaanu ku talagalnay waqtiga ugu adag inaan ku beegno oo hawsha halka ka qabsado talweynaha intan isu keenay caana shubka qiimaha la eg sameeyay ilaahay hadduu ku rooyahay sidan isugu soo dubariyay awoodda noocan oo kala amuujiyay dhaqaalaha intan la eg geliyay hawsha oranayna waa la burburiyay waa la geliyay waa investment dhaqaalaha intan la eg geliyay waxaan leeyahay insha Allah ta'ala inta aad geliseen in la eg maqalka garaadka hal la geliyo waxa la yiri odaygu gadaashiisu hadlaa wuxuu qaadayo wuxuu ku qaadaa intii ka dambeysay wuxuu talinayo wuxuu ku taliyaa wanaaga iyo ilaahay hadduu ku rooyahay sida loogu hareereysan yahay aanu leenahay garaadka hadba inta ku hareereysan sida u wanaagsan tahay buu wanaagsanaanaya quruxda agtiisa taala jirkiisa iyo indhihiisa iyo qalbigiisa ka muuqanaysa inta in ka badanna waad awoodaan caqligeedii baad leedihiin cilmigeedii baad leedihiin taladeedii baad leedihiin insha Allah ta'ala sidaa loola garab istaago sidaa caana shubkiisa u garab istaagteen u garab istaaga insha Allah ta'ala taladiisa marka koowaad ma oran karo hambaliyo oo nin isim waa garanayaa ismnimadu waa dhuxul daba oo lagu dhiwaad gacantaada ku haysid Garaad Mukhtaar Garaad Cali inuu ilaahay u fudeeyo xilkaas maanta loogu caana shubay si gaara garaadka anu saaxiib baan nahay waan soo wada shaqeynay muddo 5 sanadood ku dhow ayaanu habeen iyo maalin wada shaqeynaynay marka qiimo gaar ah ayay ii leedahay maanta caana shubkiisu u hambalyeynaya garaadka cusub isagoo garaad Soomaaliyeed ah haddana ku soo biiray isimada aan anigu ka mid ahay waxaan leeyahay garaad soo dhawow hambalyo intii iga horeysay iyadoo ku hadashay inta iga damaysana ku hadlayso inta maqana aan wakiil u nahay oo hadalkoodii ku hadlayo abaarta aanu leenahay iyo kaalinta aanu rabno aad diyaar u tahay inaanu kula qabanno iyo wixii aanu kaaga horeynay iyo barbaarintaada ku soo dhawow anoo magaca dhaqanka ku hadlaya diyaar ayaanu kulana waxaan u barbaarnayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xidhnaato oo xaligga ilaahay aad qabsato mar kastoo xiriirka adiga ilaahay uu xoogan yahay oo rabbiga ayuu ku abuuray ee wadkeenay sharafta badan ku siiyey allaha inaad ku xidhnaato garaadku waa garaad nabadeed inuu garaad nabadeed yahay waxaad ku garanaysaa nabadgelyada iyo ehelnimada iyo walaalnimada dadkii wixii aan ogaa kala gaaray maanta in la isku dhex fadhiyo taasna garaad waxaan leeyahay sii wad hawsha adiga garaad jaamac idiin taala hawl fudud weeye wixii eega ka dambeeya
in la sii tibintaabiyo in la sii hagaajiyo in la sii wanaajiyo ayaan idinkula dardaarmayaa. maanta ab iyo abtibaalka waa u dhannahay magacii abtiga khaal waalid abtiga garaad mukhtaar baan ku hadlayaa oo aan ku caanashubaya insha allah oo ku caanashubay waayo waxaan hayday ooftiin nuugayo waxa weeye maanta waan si gaar ah arrintaasi maanta rag badan ku soo dhaweeyey meeshay ahayd oo nolosha ku soo dhaweeyey umad badan iyo xalqi badan oo aan siyaanada ka leeyahay waayahay intaasina waa intaa munaasabad marka ugu horeysa waxaan halkan maanta baarigaynaa caanashubka garaad mukhtaar garaad cali buraale oo aan waxaan rabaa halkan inaan ka soo gudbiyo salaan kal iyo laab ka soo gooday oo aan ka siinay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo guud ahaan garaadka iyo ismada halkan jooga inta sida noo soo maamusteen oo meelaha dheer nooga timaadeen sida noo soo qiimeyseen ayaan ilaahay idinka baryay inuu agtiina maamuus iyo sharafta iyo qiimaha mid lamid ah agtiina noo dhigo arku horta waa sida camal caruus oo kala malaynayo wiilkii gabadha marka la isku carooso inta marxaati waa loo noqdaayo waxa la yiraahdaa wakaasay gabadhaas ugu ogaada ama wiilkaygu ogaada agtiisa soo marina waxaan leeyahay maanta reer baa waxay dhaheen waka odayga naga soo abaaraysaan haddii wax nagu maqan yihiin isaga soo raadsada haddii kalena wax naga yimaadaan isaga soo raadsada marka insha Allah mukhtaar cabdi jaamac sahan TV laascaanood